Assalaamu calaykum. Dhulka aan ku noolnahay waa uu isbedelaa oo mararka qaarkood wejiyo cusub ayuu yeeshaa. Malaayiin sano ka hor qaaradaha adduunka aad bay isugu dhowaayeen. Marar badan waxaa dhaca dhulgariiro muujinaya socodka uu dhulku u sameeyo. Meelaha qaarkood adduunkana ka mid ah waxaa ka dhashay jasiirado cusub, sida jasiiradan badda dhexdeeda ka soo baxday. Haddaba sida ay sheegayaan culimada juqraafiyahanada, qaaradda Afrika waxay u kala go'aysaa laba qaaradood. Qayb waddanka Soomaaliya ku jirta ayaa ka go'aysa qaaradda inteeda kale. Caddeymaha muujinaya arrintan ayaa ah kuwa hadda ka muuqanaya oo ka dhacay dhulka Cafarta degta ee dalka Itoobiya, halkaas oo ay tan iyo 2005tii dhulka uu sameeyay godad aad u waaweyn, taas oo meelaha qaarkood gaaraysa ilaa 200 mitir, taasoo markaa keeni karta in biyaha badda godka dhulka noqday buux dhaafiyaan, markaa oo u kala jaraysa qaaradda Afrika laba qaaradood. Laakiin arrintani maaha mid dhacaysa habeen iyo maalin gudaheed ama waqti dhow toona, ee waa hanaan qaadanaya malaayiin sano. Qaaradan cusub ee samaysmi doonta ayaa ka koobnaan doonta Soomaaliya, Jabuuti, iyo qaybo ka mid ah Itoobiya, Kenya iyo Tanzania. Si maalin walba macluumaadkeena kuu soo gaaro, waxaad sameysaa subscribe saar janaalka.